Asalaamu calaykum saaxiibayaal, halkan waa Caasima Media. kusoo dhawaada muuqaal cusub. Waa qaybtii labaad ee sheekadii ama qisadii jacayl ee dhex martay Faiza iyo Faysal. Maantana sheekadeena waxay ka bilaaban doontaa halkani. Faiza aad bay uga fakartay go'aanka ay ka gaari lahayd guurka uu soo bandhigtay Faysal. Waxay dukatay istighfaar ayna rabbigeeda weydiisatay. Rabbigeeda waxay weydiisatay guurka hadduu khayr ugu jiro inuu u sahlo, hadduusan u ahayn mid khayr ah uu rabbigeeda ka leexiyo. Faysal ma uusan ka daalin inuu weydiiyo go'aanka ay qaadatay. Faiza ma aysan lahayn qof saaxiib ah oo ay la tashato, alla kaliya bay u dhiibtay arrinteeda. Faiza waxay xasuusanaysay dardaarankii aabaheed ee ahaa aabba guurso qof kugu raba diintaada iyo akhlaaqdaada, marna ha guursan qof daneynayo qabiil ama qurux. Dardaaranka aabaheed aad bay uga fakartay, mana jeclayn in ehelkeeda saameeyo go'aan ay qaadatay darteed. Intaa kadib Faiza maalin khamiis ah waxay soo toostay subax hore, waxay dukatay salaad subax, waxayse akhrisay qur'aan iyo adkaar. Kadibna waxay go'aansatay inay aqbasho guurka Faysal uu soo bandhigtay. Waxay wacday Faysal waxayna u sheegtay inay aqbashay arrintii uu soo bandhigtay. Faysal aad buu ugu farxay maxaa yeelay waxa uu ka walwalayay in uu waayo gabadhan wanaagsan. Intaa kadib waxay ka wada hadleen guurkoodii iyo sidii uu la xiriiri lahaa ehelkeeda. Faiza waxay u sheegtay in uu Faysal la hadlo aabaheed oo xilligaa ku sugnaa magaalada Gaarisa. Faysal waxa uu la xiriiray aabaheed. Faysal baa aabihii oo la hadlay si wanaagsan, wuxuuna u sheegay xaaladiisa iyo heerka waxbarashadiisa. Aabihii waa uu ku qancay hadalkii Faysal, wuxuuna dhahay hadday gabadhaydii ku ogolaatay aniguna waan ku siiyay, laakiin wiilkaygiiyow, gabadhayda waa keligeed, marna ha dayicin oo qadari sida aan adiga kugu soo dhaweeyay. Faysal baa dhahay aabbo waa igu ballan oo ma dhici doonto. Faiza iyo Faysal waxay go'aansadeen guurkooda inuu dhaco 3 bil kadib. Intaa kadib Faiza waxay u dhaxaysay guriga iyo masjidka. Faiza ma aysan la hadli jirin qofna maxaa yeelay waxa ay ahayd gabar aad u xishood badan. Faiza ma aysan dalban aroos weyn maxaa yeelay ehelkeeda halka meesha kama uusan dhaweyn. Intii muddadii lagu jiray Faysal waxa uu isu diyaariyay guur, waxa uu dalbay alaab fiican, waxa uu kireeyay guri weyn. Faysal reerkiisa buu arrintii la socodsiiyay, waxayna u duceeyeen. Intaa kadib Faysal waxa uu yarad u diray Faiza aabaheed. Aabihii aad buu ugu qancay yaradii la siiyay gabadhiisii. Aabihii gabadhii walaayadeeda waxa uu dhiibay sheekh, sidaas ayuuna sheekhi ku meheriyay. Meherkoodii waxa ka soo qayb galay dad badan oo u wada duceeyay dhamaantooda. Faiza iyo Faysal waxay galeen nolol raxmad badan oo midkood midka kale ku qancay. Faysal jacaylkiisii in uu sii siyaado ma uusan nusqaamin. Faiza waxay ku dadaali jirtay inay adeecdo ninkeeda, had iyo jeer waxay ka shaqaynaysay farxadda qoyskeeda. Waxa ay noqdeen laba qoys oo tusaale loo soo qaato sida ay isu jecel yihiin. Muddo kadib Faiza iyo Faysal wuxuu Allah siiyay 3 wiil iyo gabar, carruur qurux badan oo caafimaad qaba. Carruurtoodii aad bay u jeclaayeen. Faiza carruurteedii bay uga hartay waxbarasho iyo shaqo. Faysalna waxa uu noqday aabbo wanaagsan oo kaafiyo baahidooda. Faiza waxay ku dadaashay tarbiyada carruurteeda. Sidoo kale Faysal wuxuu aad uga qayb qaatay tarbiyada carruurtiisa. Waxa ay noqdeen qoys lagu daydo. Faysal mar walba oo waqti uu helo qoyskiisa buu farxad la wadaagi jiray. Intay wada noolaayeen weligood waxba iskuma qaban oo waxa ay ka dhaxeeyay xushmad iyo wanaag. Intaa kadib waxa xaafadoodii soo degay gabdho Soomaaliyeed oo qaraabo la ah Faysal. Gabdhihii waxa ay sheeko wadaageen Faiza, waxay ka wareysteen ehelkeeda iyo qabiilkeeda, ilaa Soomaali qabyaalad kama dhamaatee. Intaa kadib Faiza arrintii waxay la noqotay lama filaan maxaa yeelay ma aysan ka filayn su'aalaha ay weydiiyeen. Waxa ay uga jawaabtay ay garan weyday. Gabdhihii waxa ay galeen baaritaan oo ay ku raadinayaan sida ay ku ogaan lahaayeen qabiilkeeda iyo ehelkeeda. Tolow yaa u dirsay arrintan, maxayse ka raadinayaan qabiilkeeda. Daawadayaal, inta ay noo joogto qaybtii labaad ee qisadii jacayl ee dhex martay Faysal iyo Faiza. Waa intaa iyo qaybta kale aan ka gaari doono. Sidaa iyo amaan Allah.